falimaha rasuullada cutubka lixaad waagaas waxaa dhacay intii xertu badanaysay in yuhuuddii griiga ay ka gunuunceen cibraaniyaddii maxaa yeelay carmaladoodii laga dhintay wixii maalin walba la siin jiray looguma hagar bixin markaasaa 12 intay isugu yeedheen kuwa badan oo xerta ka mid ah waxay ku yidhaahdeen ma wanaagsanaa inaannu ereygeena iska dayno oo aannu miisas ka adeegno haddaba walaalayaalow waxaad dhexdeenna ka xushaan 7 nin oo sharaf leh oo ay ka buuxaan ruuxa iyo xigmaddu si aynu u dooranno shuqulkan annaguse waxaannu ku sii adkaysan doonnaa tukasho iyo shuqulka ereyga hadalkiina waa ka wada farxiyey dadkii badnaa oo dhan oo waxay doorteen istefanos oo ahaa nin ay ka buuxaan rumaysad iyo ruuxa quduuska iyo filibos iyo barokhoros iyo nikanor iyo timon iyo barmenas iyo nikolas kii reer antiyokh oo diinta soo galay kuwaasay rasuulladii hor keeneen oo markay tukadeen dabadeed ayay gacmahoodii saareen markaasaa ereygiila faafay tiradii xertiina yeruusaalem aad ugu badatay oo tiro badan oo wadaadaahina iimaankay yeeleen markaasaa istefanos oo ay nimco iyo xoog ka buuxaan ayaa dadka dhexdiisa ku sameeyey yaabab iyo calaamooyin waaweyn laakiin waxaa kacay oo istefanos la murmay kuwii sunagoga la odhan jiray sunagoga libertiinta iyo kan reer koranaya iyo reer iskandariya iyo kuwii kilikiya iyo aasiya iyaguna waa ishortaagi waayeen xigmaddii iyo ruuxii uu ku hadlay markaasay niman laaluusheen oo nimankii baa waxay yidhaahdeen waxaannu maqalnay isagoo muuse iyo ilaaha caayaya markaasay kiciyeen dadkii iyo waayeeladii iyo culimmadii oo intay isagii ku soo kediyeen oo qabteen ayay shirkii geeyeen markaasay waxay soo taageen markhaatiyaal beena oo leh ninkanu iskama daayo inuu meeshan quduuska iyo sharciga erayo xunxun ka sheego waayo waxaannu maqalnay isagoo leh ciisaan reer nasaareed meeshan buu dumin doonaa wuxuuna beddeli doonaa caadooyinkii muuse inooga tegey oo kuwii shirka wada fadhiyey oo dhan iyagoo aad u fiirinaya waxay arkeen wejigiisii oo sidii weji malaa'igeed oo kale